qalab xafiiseedkan oo ay farsameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Xamar ayaa lagu wareejiyay maamulka golaha murtida iyo wacyigelinta National Theatre waxaana ku wareejiyay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed kadib dalab ugu yimid taliska madaxtooyada Soomaaliya. qalabka oo ka kooban miisado, kuraas iyo agabyo kale waxa ay maxaabiista ku farsameeyeen warshada wax soo saarka xabsiga dhexe ee Xamar. taliyaha taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe ayaa ka warbixiyay qalab xafiiseedkaasi oo ay ka dalbatay madaxtooyada isla markaana uu ku wareejiyay agaasimaha warfaafinta Cabdinuur Maxamed Axmed oo sii guddoonsiiyay maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta National Theatre Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. taliska asluubta ayaa ka dalbaday golaha murtida iyo wacyigelinta National Theatre in ay ka qayb noqdaan isla markaana ay ka qayb qaataan wacyigelinta dhalinyarada. waxaan isleeyahay waa meeshii ugu habboonaydna waa naga dalabtay oo xafiiska madaxweynaha hadduu naga dalbay qalabkan inaan u samayno waxay noo tahay aqoonsi iyo dhiirigelin ayay noo tahay. waxaanu u qaadanaynaa in hay-adaha dawladdu ama xafiiskii ugu sarreeyay ee dalku uu muxuu ahaa dhiirigelinayo hay-adihii kale ee qaranka ee howlahan si ay ugu dhiiradaan in ay muxuu ahaa waajibaadkii loo igmaday ay sameeyaan. hay-addan oo looga dalbayna waxay noo samaynaysaa macno gaar ah oo annagu dhinac baanu wacyigelin iyo toosin iyo waxaanu ka nahay muxuu ahaa dhaqan celintii. fariinta koowaad waxay tahay in hay-adaha dawladda ayaga gudahooda ay iskaabi karaan oo iskaalmayn karaan waayo lacagta aan ku bixinayna alaabtan waxay runtii gelinaysaa aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo iyo karti dad maxaabiis oo markay halkan soo gelayeen aan lahayn xirfadda maanta iyo wax soo saarka ay sameeyeen taasoo markay bulshada dib ugu noqdaan runtii ay khibradooda dib ugu celin karaan ganacsiyo furan karaan yacni dhaqan xumadii ama eedaymihii iyo wixii lagu soo eedeeyo meeshan loo keenayna beddelkeeda ay bulshada dad waxtar lagu noqon karaan. maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa ugu dambeyntii taliska ciidanka asluubta u mahadceliyay qalabkaasi ay guddoonsiiyeen waxaana uu goobta ka mariyay tixgabi ah oo uu ku cabirayay waxtarka tiyaatarka qaranka haddii la maalgeliyo. guri dhaqanka Soomaaliyeed geliye diiwaanka oo lagu gamo waxaan ahaa garasha taalaaye hal abuurka goob lagu liso gaaxda lagu maalo golihii waxaan ahay murtida gaawaha u siday garaafada haddii layga tiro saaran gibilkayga gambaday furteen iyo haddii gaafki lay saaro gurmad qaranna aan helo waan godla lahaaye biladaan guddoonsii lahaa maamulaha guude geeshka ciidankeennuna gadaal sooma eegeene bulshadan gardaadsii lahaa goor iyo ayaane waddanigaan garawsii lahaa waxaan gudboonayne gaarsii madaxda waxay ii galaan waa u gudayaah waa gaarsiiyey madaxda Soomaaliyeed xaaladda tiyaatarku uu ku sugan yahay waana ka soo jawaabeen oo waxaad arkaysiin maanta in la guddoonsiiyey qalabkan. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay, TV Universal, magaalada Muqdisho.